wafdigu hogaaminayo musharax Faysal Cali Barre oo ku magac dheer Kartuush kana mid ah musharaxiinta xisbiga muxaafidka ee kulmiye uga tartamaya doorashada golaha deegaanka degmada Ceergaabo lambarka codayntiisuna yahay 205 ayaa gaadhay deegaanka Wirwir kulmiye xabowga iyo deegaano kale oo ka tirsan degmada Ceergaabo kuwaas oo musharaxayo wafdidiisa ay si ballaaran ugu soo dhaweeyeen bulshada deegaanadaasi oo ku qaabilay calanka xisbiga kulmiye lambarka musharaxa iyo sawirada waxaana musharaxa oo ku horeeyay deegaanada xabowga iyo kulmiye ay u ballan qaadeen dadka deegaanku inay cod ka siinayaan maalinta doorashada ee 31 May. Faysal Cumar Barre waxaan halkani waa biyo casuuro waa xabow diyaar baan ku nahay cod iyo cudud diyaar baan ma nahay degmadana waa xabow xoogaa kadis baa warku nagu ahaa in badan baanu diyaarin lahayn dadka soo dhaweynta kuna soo dhawow dhammaan uqaasha la socota iyo wafdiga ballaaran waxaan leeyahay guulaysta annagu waxaanu u soconay deegaankaanu maraynay Faysal Cumar Barre waa idin sheegi doonaa qorshihiisa annaguna waxaanu idin leenahay Faysal Cumar Barre waa soo xulay oo golaha deegaanka degmada Ceergaabo buu sharaxan yahay idinkana cod baa la idinka rabaa soo siin maysaan waxqabadkiisa iyo qorshayaasha waanu ka ballanay ayaanu wadnaa waa musharaxaanu soo xulay ku soo xulay karti aqoon iyo waxqabad inuu deegaamada u qabto iyo dalkaba xisbiga kulmiye oo isna aha xisbiga talada dalka haya ayaanu ka wadnaa inaad 31 May soo cod ka siin maysaan Faysal waxaan leenahay soo dhawow gamca furan qalbi furan niyad saafiya gobolku waa gobolkaagii meeshu waa meeshaadii kaliya laabaan ku soo dhaweynaynaa cod haday tahay hiil iyo hooba haday tahay waan kula garab taaganahay waxaanu salaamayna Faysal Cumar Barre xusbiga uu iska sharaxay waa xusbiga qaranka xusbiga kulmiye ha noolaado qolada la yiraahdo tabcaar wadaag inaanu kaambeegareysanay xusbiga kulmiye Faysal Cumar Barre oo ka sharaxan golaha deegaanka ayaanu ku soo dhaweynay magaalada kulmiye iyo magaalooyin badan oo kale u tagi doono xusbiga kulmiye ha noolaado xusbiga kulmiye ha noolaado ilaahay xaqiina way ka timi oo waanu kuugu hambalyeynaa adiga iyo khayrkaaba inay noqdaan kuwii dalka iyo diinta iyo dalkaba wax aqaa sidaas aanu kaaga rajaynaynaa dadka ku soo baxay dadka ilaa xalay halka taagnaa ilaa shalay taagnaa adiga ku sugayay iyagu waa u mahadnaqaynaa dhamaantood heer kulmiyaan ahay dad kale oo yimaado shukaansadana waa jiraan laakiin anigu magaaladan aan deegaan ku ahay حتى باهيها جرا إردبتها يكجرا حتى أطبعوا درين صناعي مركب وحين لا يركل ميو قلت تاكل بشاريستا إلهي وحن كرر شيء يا هوشة واحد بدنينا كقبطو عود كان دايدون ويديسن ما يواكو خصبنتي مركب وحين لا كرتوش كل مية إذن لدكان مريش إذن لدكان عدور إذن لدكان kartuushka codka la siiyo intaasi kadibna waxay wafdida musharax uga sii kicitimeen deegaanka Wirwir halkaas oo bulshada deegaanku ay si weyn ugu soo dhaweeyeen waxayna u ballan qaadeen geestooda inay cod ka siinayaan musharax Faysal Kartuush oo lambarka codayntiisu yahay 205 galabta waxaanu joognaa deegaanka Wirwir ama Buqxaylahe oo waqooyi bari kaga toosan magaalada Ceergaabo halkan waxa booqanaya musharaxa deegaanka musharaxaas oo taagan golaha deegaanka ee doorashada maarta Somaliland xisbiga kulmiye ka sharaxan mudane Faysal Cumar Barre oo loo yaqaan Kartuush halkan waxa jooga dhammaan taageerayaasha musharaxa oo maanta halkan ku soo dhaweeyay rabana inay u ballan qaadaan in maalinta 31 bisha May ama bisha shanaad ee 2021 ay cod ka siiyaan halka waa la sheegay waa Wirwir ama Buqninba sidoo u yaqaano Faysal Cumar Barre oo isagu aan oran qabiil xildhibaankana waa wada taageersan tahay aad baanu soo dhaweynaynaa annaguna waa idin soo dhaweynaynaa 100% bacdi waxa weeye horta Faysal Cumar Barre ma ku midaysantiin codkiisa golaha deegaanka inaad siisaan waa ku midaysantiin dadka faraha badan leh oo cid walba leh oo aan ahayn qabiil oo isdhalka ah oo abti iyo seedi iyo in habar wadaagi hadii alla ku reey dad ilaahay isbaday oo meesha wada degan ah waxay codkooda diyaar u leeyihiin mudane Faysal Cumar Barre mudane baanu ku leenahay intuba
diyaar waxay u tahay inay codka siiso annana waxaanu leenahay waa ku siinay ilaahayna ha kugu guuleeyo cidda uu Faysal Cumar Barre isagu la yimaado astaanta xildhibaanka uu la yimaado baan codka kalena siin doonaa war soo saa maaha dhaweynayaa wafdida iyo xildhibaanka nooga yimi Ceergaabo Faysal Cumar Barre oo maanta deegaankiisii yimi Woodwood waxaan ku leeyahay xildhibaan cod iyo cudud iyo ciidan iyo mid kasta waa lagu muujiyay soo dhawow waa garanaysaa inta badan idin inuu sugaynahay meel kalena codka marina waa ku ballan qaadaya waxaan naftiina iyo taydaba haddaba u dardaarmaya qabca badan baa jirta ummad badan bay noo imanaysaa qaad bay sidaa lacag bay sidaa saxmad bay sidaa waynu ka qaadanaynaa ilaa qofna uma gacanadino ma oran kaale fartaasi waa meel iyada xildhibaankan waxaan leeyahay xildhibaan horta codka waad heli ilaah baa ku siinaya ummaduna waa kuu heegan waxaa ku soo dhaweynaya intaad magaalo maraysay iyo intaad gobol maraysayba cod bay kula rabeen inaad soo baxdaa bay rabeen sidaa u soo halganteen oo xildhibaanka ugu soo halganteen oo codka u siinaysaan oo ugu shaqaynaysaan oo heeganka ugu tihiin Faysal hadda magac Faysal baashin xildhibaan golaha deegaanka Faysal laakiin musharaxa lambarkiisa marka calaamada saartay farxad waxaanoo balana ama ballanteenu taa 200 marka haddaynu intaynu ballanno munaafiq baynu noqonayna haddaba waxay tahay waxa aynu isniin waa inay wax runa noqdaan waxaynu ka rajaynaynaa isagana ilaahay waxa uu doonayay in alla ku guuleeyo danahana ilaahu nala ururi ilaahay wixii dana ilaahu nala ururi اللهم صل على محمد musharax Faysal Cali Barre Kartuush oo gabagabadii la hadlay bulshada deegaanadaasi ayaa ka codsaday inay codkooda ugu heeliyaan si uu wax uga qabto baahiyaha deegaanadaasi dugaashaday marka heer buuqeedna aad bay u mahadsan yihiin hadday casumaad noqon lahayd hadday soo dhaweyn noqon lahayd hadday qalbi furan oo nala ku soo dhaweeyay ay noqon lahayd haddii aan sheekadii aan hore u bilaabay oo ahayd buufiskiina la ka saaray waxaan leeyahay 100% waa mahadsantihiin horta mid haddii ilaahay ugu guuleeyo waa ballan qaadaya magaaladan kolba waa lagu turunturoodaa baalihii laydhka soolaradii aad baan heer buuqeed idinku hambalyaynayaa caduuro bixin garabkarid haldaagan xaylehe caarimire kulmiye midhisho caduur xabow intaanu maanta soo marnay isku mid baatii waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin intaan isla dareeno marka anigu laftaydu rajo badan bay igu jirtaa insha Allah oo wax badan aan hadeer sheegayn laakiin waxaan jecelahay inaan wax qabto oo ducada dadka qaato qofkuna hadduu nool yahay waxbuu ka tagaa waxaan jeclaanayaa insha Allah haddii alla awoodda iyo ogolaado in wax la igu xusuusto aan kaga tago deegaanadan musharaxu intii uu marayay deegaanadaasi waxa uu xariga ka jaray oo ka furtay deegaanadaasi xafiisyadiisa ololaha doorashada golaha deegaanka ee uu tartamayo Cabdiraxmaan Ilsar Saab TV Ceergaabo.